وادي سلام صاحب يال maanta waxaan bilaabo doonaa taxane aad u xiiso badan oo magaciisu yahay The Art of Sarah inta muuqaal guda galin wax xusuusinaya in muuqaalka uu saartid saaxiibana wax cusub hadii aad subscribe soo channel gambaleelka furo taxaneen wax ku bilaabanaya xaflad lagu soo bandhigayo boorsooyinkii u dambeeyay soo saartay shirkadda ugu caansan Korea kadib goobta bandhig waxay imaanayso atirishada imtixaanaha oo lagu magacaabo Sarah Kim kadib xasuudaa baraf aad u badan shaqaalan waxay soo qaadeen dalad si aysan barafka u gaarin boorsooyinka wayna daboolayaan maadaama markada boorsooyinka uu yahay mid qaali lacagtiisa Sarah waxay fiirinaysaa barafka soo da'ayo kadib waxay dhahaysaa runtu waa sida iftiinka oo kale waxay inabeel ku ridaan indhaha laakiin beenta waxay u eg tahay sida qoraxda markay dhacayso wax walba way qorxisaa ilaa sirtaada banaanka soo baxayso kadib ayadan dalada ay soo qabsanaysaa waxayna barafka u daboolaysaa boorsada dhinaca kale waxaa arkinaa dad subaxdii inta la gaarin teendooyinka dhisteen banaanka hore carrada lagu gado boorsooyinka si markii la furo u noqdaan dadka ugu horeeya ka dukaamaysta kadib waxaa arkinaa midoo teleefonku hadlayso kadib sigaar ayadoo shidan rabto jantaa wuxuu ugu dhacdhacaya god meesha ku yaalay ay maraan biyaha kadib ayadoo soo qabsan rabto waxay meesha ku arkaysaa meyd meesha yaalo kadib ayadoo naxsan ayay qeylo af furanaysaa kadib meesha waxaa imaanayaan booliiska dembi baaraha kiis qof kale ma ahan oo atooraha filimka oo lagu magacaabo Park Moo waxaana loo sheegay in saacada ay baaritaan ku hayaan laakiin ilaa hadda ma helin wax cadeen ah oo aan ku aqoonsan karno meydkan sida ID ama teleefon ay wadatay kaliya meesha waxaa ka helnay hal boors oo kaliya dembi baarayaasha baaritaan ay ku bilaabayaan si meesha uga helaan hal cadeen xataa kadib waxaa la geynayaa shaybaarka gabadha wax baaris waxay ku dhahaysaa waan baaran boorsadan faraha ku yaalay laakiin naguma filno inaan aqoonsano meyd qofku yahay dembi baarka wuxuu ku dhahayaa waxyaabo kale ma ka hesheen boorsadan gabadha waxay ku dhahaysaa boorsooyinka qaarka noocan laga sameeyey waxay la tahay in siqaas loo sameeyo kadib dirishada ay furaysaa waxayna ku dhahaysaa boorsooyinka noocan waxay leeyihiin nambar sireed kadib dukaankii laga soo gada waxaa imaanayo askari mid ka mid shaqaalaha wuxuu tusayaa sawirka boorsada nambarkeeda wuxuuna weydiinayaa qofka gata boorsadan kadib gabadhii shaqaalada ahayd ayadoo dhuumanayso ayay qofka wacaysaa teleefanka dhinaca kale waxaa arkinaa baarg oo jooga meesha lagu baaro meydka dhakhtarkan wuxuu sheegay in qofkan si xun loo dilay waxaana wejiga loogu dhufto waxaad u culus ilaa afkeeda iyo ciridkeeda isku dhex dhaceen kadib baarg wuxuu sawirka qaadanaya lugteeda wax ku qoran kadib wuu turjumanayaa waxaana ku qorneed lugteeda murugo aad u weyn kadib asagoo xafiiska jooga baaritaan samaynayo waxa uu imaanayo midkoo wuxuu ku dhahayaa boorsada ma ogtahay qiimaheeda waa mid qaali ah qofkii ka tegay ama u waalnaa ama wuxuu ahaa dilaa taajir ah baarg wuxuu ku dhahayaa horta adigaa noo ahayd midkii kale wuxuu ku dhahayaa mudan aniga waxaa la dhahaa Jay waxaan ahay dambaare tiimkaadan oo ku cusbahay maanta ay ugu horeyso kadib baa soo wacay waxaa loo sheegayaa in boorsada meydka agtiisa laga helay ay leedahay gabar lagu magacaabo Eugene waana CEO shirkadda Nokia waxayna boorsadeed siisay saaxiibteeda baarku soo baxaya Jane wuxuu ku dhahayaa qof maal kulmaysa oo ku soo kiiskan hore ma ku sii raaca baarku wuxuu ku dhahayaa waxa iraacis ma lahan xafiiska sir fadhiiso kadib Eugene ayaa u imaanaysa waxaana la tusiyaa meydka wajigiisa hadana baarku wuxuu tusiyaa lugteeda qoraal ku qornaa markay aragto naxdin ay dhulka ugu dhacaysa waxayna dhahaysaa tan waa huwa Sarah Kim waay kadib waxay ka codsanaysaa baarku inuu meyd kaligeed ugu tago kadib baarku wuxuu fiirinayaa qolka amrad ku dhagan inay daaran tahay waxaanu ku dhahayaa waxaan ku siiyay 5 daqiiqo kadib ayada kaligeed ayuu tagayaa qolka markay soo dhamaysato ayadii baar way fadhiisanayaan baarku wuxuu weydiinayaa labadiin laba qof isku dhow ma aheedeen Eugene wuxuu ku dhahaysaa anigaasi boorsan ayaan ku dhahay jawaabtaas kugu filna miya baarku wuxuu ku dhahayaa jawaabtaas kaliya ugu filna marka waa inaa ii sheegtaa sidee wax u dhaceen kadib Eugene sheekada meesha ka bilaabatay ayuu sheegaysaa markii ugu horreysay aan arko waxay jiidaysay boorso aad u weyn waxayna soo gashay dukaanka lagu gado boorsooyinka ayadoo boorsada jiidayso kadib marba mid ay isku fiirinayso boorsooyin gacanta gabadha meesha shaqaalaha ka ah way daba socotay Eugene markaas ay buuqooda ku soo jeesatay kadib shaqaale kale ay u timid waxayna ku dhahaysaa walaalay boorsada weyn ka qaada Sarah Kim way diidaysaa waxayna shaqaalaha ku dhahaysaa boorso walba aan taafto waan gadanayaa maanta kadib markay Sarah soo daashay waxay iska seexatay kursiga meesha yeelay Eugene ayada ay ku maqneed waxayna fiirinaysay lugteeda iyo dharkeeda wadato ayadana waxay isdhaysay qoftan weji lacag leh uma eko kadib shaqaalada u timid waxayna ku dhahaysaa magacaaga ma noo sheegi kartaa iyo ciwaanka gurigaada ayadana waxay ku dhahaysaa Sarah Kim ayaa la dhahaa halaha kala soo hel macluumaadkaada iskaaga qorqor gabadh inta yaabta ayay ku dhahaysaa dalabkaaga waa diyaar markaarkaaga bangiga iyo aqoonsigaaga keen Sarah Kim kadib waxay furaysaa boorsadeeda oo lacag badan ka buuxaan waxayna ku dhahaysaa kaashaan ay u dhiibayaa lacagta Eugene ayadana meesha ay fadhisay yaab ayaa ka soo haray shaqaalaha waxay bilaabeen lacag tiriyaan Sarah meesha ay iskaga wariday ayada kadib midoo ayaa shakinayso lacagta ay qaadaysaa gudaha ay gelinaysaa kadib waxay fiirinaysaa lacagta inay fake tahay gabadha waxay ogaanaysaa in lacagta ay tahay lacag sax ah maalintoo kale Eugene ayadoo loo keenay boorsada ay jecleed oo aad u faraxsan oo isku fiirinayso oo miyaarid taagan waxay arkaysaa boorsa aan caadi ahayn quruxdeeda kadib waxay shaqaalada weydiinaysaa inay isku fiiriso gabadha shaqaalada waxay u sheegaysaa in boorsadan in qof si qaas ah u dalbaday Eugene waxay taliya u sheegaysaa in qoftaas lagu magacaabo Sarah Kim ay qof aan caadi ahayn meel aan laga aqoon ma lahan qofta shopping sameysana hadee dhahdo dukaanka inay rabto wax yar ayaa ugu dhimnaanayo dharka ugu qaalisan ay gadan jirtay Sarah Kim waxay ahayd qof dadka dhan hadal haayaan markoo kale aan azuumaad joogo midoo saaxiibo aan ahaan oo aktarad ah waxay ugu dhaad qofta Sarah ah inay tahay maamulaha ugu sareeya shirkadda Bodior waxayna email gelisay filimkeega ugu dambeeyay shirkadda Bodior boorsooyinka soo saaran waa markada ugu qaalisan adduunka boqolsan shirkadaas boorsooyinka soo saaran kaliya waxa isticmaalo dadka taajiriinta ah iyo boqortooyin ku yaala Yurub kadib Eugene waxay kor ka arkaysaa CEO shirkadda Samuel kadib way u imaanaysaa wayna salaamaysaa duqna waxay soo jaraysaa horta adiga noo ahayd ma ku aqaaniba iska salaameeyay adiga Eugene waxay ku dhahaysaa waxyaabahan soo saaran shirkaddeena sanad walba ku soo dirnaa maxaa ku soo gaaraan miya duqna midoo ag fadhisay ay dhigto u sheegayso waxayna ku dhahaysaa qofta mid qaanid miya shirkadda ay CEO ka tahay waxyaabaha cosmetics raqiiska ay soo saartaa shirkad fiqiireedkeeda ayaa dhacdhac yar ka soo galo kadib duqda Eugene ay ku soo kalfireynaysaa waxayna ku dhahaysaa waxa intuu timid waxay tahay horta ii sheeg Eugene waxay ku dhahaysaa kaliya waxaan isku aragnay sikadiis ah kaliya waxaan ku weydiin rabay sababta u diiday azuumaad shirkaddeena duqdan waxay ku dhahaysaa sababtoo aniga kaliya waxaan waqti wada qaadanaa dadka isku leefalka nahay adina isku qiimeeyo isku leefal ma nihiin sababtoo adila
isfeeri adiga kuwa kula socdaan waxaa wada fadhiseen irida laga gal suuliga ayaa wax wada cunayseen anigana feeri waxaan fadhiya qaybta kore baqaayada VIP-da Yonji inta yartay ku dhaysa inta isku aragna ani adiga maxaa saan igu bahdilay ma isnaqaanay labadeena duqda ku dhaysa Yonji ka soo qaad inaa ku aqaano marka taajiriintu wax gadanayaan ma waxay fiiriyaan waxay gadanayaan qiimihiisa mise waxay fiiriyaan loogada markada wax la gadanayo iyo sumcadu suuq ku leeyahay tusaale yar aan ku soo qaato adiga la isfeeri dalka muuqdo iyo waxyaabaha wadatay Yonji waxay sheegtay weyso ay iskaga tagaysaa ayadoo yaaban waxaan isku lulacayaan Saara boorsada wadatay ay ugu daadinaysaa cabitaanka Saarna waxay bilaabaysaa inay ka tirtirto boorsada wax ku daatay Yonji ayadoo ilka duqdahay ay boorsada madaxa ugu dhufanaysaa Saara waxay ku jira boorsada dhulka ay ugu daadanayaan kadib Saara madaxa ay qabsanaysaa waxayna ku dhaysaa igraal naqsideen kuugu gudaa waxaan ka haleeyay Yonji waxay ku dhaysaa waxba ka maray qofka qalad waa ka dhaca ee markiis ka bax kadib Saara boorsadeeda waxay ku jira ay ka daadanaysaa waxayna u soo aruurinaysaa Yonji alaabta ka daadatay waxayna u gelinaysaa boorsadeeda kadib boorsada ay siinaysaa kadib waxay soo qabanaysaa roosaytadeeda waxayna ku dhaysaa adiga CEO shirkad Nokies ma tahay aniga waan jecelahay shirkadiina waxay soo saarto waan isticmaalaa Yonji ayadoo yaaban ayaa laga tagayaa kadib Yonji markay banaanka soo baxdo ayadoo sigaar shidan rabto waxa uu imaanaysaa Saara oo gaari wadato kadib waxay u shidaysaa jansiigarka waxayna ku dhaysaa Yonji hadaan hore ku sii wada kabaran Saara iyo Yonji sidaas ay saaxiib ku noqdeen Saara meel walba ay geynaysaa xataa isteelka Yonji dharka waa laga bedelayaa maalmo kadib gaarigeeda waxay ku dhuftay gaari kale midoo aktarad leedahay kadib waxay u gelisay gaarkeeda ganacsiga markay ka soo tagtay waxa soo wacday gabadhii aktarada gaarigeeda laga dhaawacay Saara miswaalanay taleefanka ay ku damisay Yonji oo la socotay in la yaabtay markay taleefan ku damisay waxay ku dhahaysaa adiga ma waalan tahay maxaa taleefanka ugu damisay Saarna waxay ku dhahaysaa si fudud in lagu helo ma ahan hadana waxay soo wacaysaa ayadoo la yaaban maadaama aan qaladka ay qirtay wayna yaaban tahay qoftaas hadda kadib Yonji waxay ku dhahaysaa maxaa way boorsooyinkan gaariga gadaashiisa kuugu jiro safar ma tahay adiga Saarna waxay ku dhahaysaa waxaan malaynaya hotelkan degan shaqaalihiisa ayaa alaabteeda baarbaartay marka waxaan rabaa inaan hotelkaas ka bedesho oo mid cusub u guuro Yonji waxay ku dhahaysaa kabaran hadda gurigeisa aad soo degto biyaanada labaad ee guriga ee firaaqa ah Saarna waxay ku dhahaysaa waa ogolaa waa fikrad fiican taas Yonji markii laga ogolaaday sayid ay u faraxday kadib Yonji gurigeeda ay keentay ayadoo miyaarad ag fadhiis waxa uu imaanaysaa Saara ayadoo wax marsanayso Yonji waxay ku dhahaysaa adiga 8 masan ku jirta waxa uu agtaabay qof tayo 20 jir ah Saarna waxay ku dhahaysaa wax lagu gadan kartaa lacagtaada xataa dhalinyaro inaa u ekaato kadib taliyaha wuxuu dhahayaa boorsada miyaatay kuugu bedeshitaada maxay tahay sababta dilaaga ugu tagay boorsadaadii hore meesha dilka dhacay Yonji waxay ku dhahaysaa waa lagu yaqaan dilayaasha inay sameeyaan qorshooyinka si qof kale qoorta u geliyaan waxay sameeyeen ayaga baar wuxuu dhahay sabab ay ka dambayso wax loogu tagay boorsada meesha dilka dhacay ani shaqadeeda waxay tahay inay raadiyo cadeen xataa meel mugdi xataa inay ka raadiyo labadii xiriirkiina saaxiibtinimo hal mar xataa shaki ma soo gelin miya Yonji waxay ku dhahaysaa sanadaha inaa saaxiib cusub inaa heshid way adag tahay kadib waxaan wadayaa Yonji oo loo keenay boorso aad u shidan waxaan u keentay Saara Yonji waxay ku dhahaysaa boorsadan shirkadiina Boodiyoor ma soo saartay Saara waxay ku dhahaysaa hadda waxaan qorsheenayaa inaa hotel aan dhiso maadaama shirkadeeda wax soo saarkeeda ee badatay Yonji waxay ku dhahaysaa kabaran haddaan labadan shirkadood ay iskaashadaan oo isku darsano Saara waxay ku dhahaysaa laakiin labada shirkadood Nokies iyo Boodiyoor inay yihiin laba shirkad oo kala jiha ah maalintii xigta Yonji waxay qabanaysaa shir jaraa'id degdeg ah waxayna ku dhahaysaa asxaabteeda kabaran haddaan maalgashi ku sameysano shirkadda Boodiyoor mid kamid ah taliyaasheeda wuxuu ku dhahayaa horta maalgashi inta ku sameysanin waa inaan iska soo hubinaa shirkadaas Yonji waxay ku dhahaysaa waxaas wax hore ay ahaayeen kabaran inta hubin bilaayo ku maqannahay haday fursadana dhaafto hal dhagax laba shimbir ku dil waay ani waxaan rabaa inaan isticmaalo oo ku danaysto magaca shirkadda Boodiyoor sababtoo ah way iga badatay saan qof walba uu maqlaayay waa inaan shirkadda Nokies kor u qaadaa sumcadeeda maalintii xigta ay Saara u imaanaysaa waxayna tusaysaa qorsheeda in labada shirkadood sida isku hal wada u noqon lahayd Saara markay si fiican u aragto waxay ku dhahaysaa in labadan shuraaka aan noqono waa rumowday Yonji markay warkaas maqasho aad ay u farxaysaa kadib agteeda ay soo fadhiisanaysaa Saara waxay ku dhahaysaa meeqa lacag ayaan ugu maalgashan rabtaa Yonji waxay ku dhahaysaa 10 bilyan oo won ayaan ku maalgashanayaa shirkadaada Saara waxay ku dhahaysaa 5 bilyan hadda ku dirto kabaran lacagta maalgashiga Yonji ma diidayso waxayna ku dhahaysaa diyaar way lacagtaas habeenkii ma kala gaaro labadooda warqadaha heshiiska ay wada saxiixanayaan kadib shirkadda wax soo saarkeeda aad ay ugu batay habada ayaan gashay dadka dhan waxay bilaabeen inay boorsooyinkeeda gataan Yonji aad ay u faraxsaneed maadaama shirkadeeda faa'iidada ay ka heshay bishii koowaad ay ahayd 1 bilyan markaas lacagtu waxay u imaanaysay cir iyo dhul damibaara waxay sheegaysaa in habeenka xafladda bandhigan ugu dambeysay inay aragto Saara Kim ana markii la waayay warkeeda waxaan wargeliyay askarta aniga shaqo shughul ma kulli dilkeeda ayadoo sii bixi rabto baarku waxa ku dhahayaa sawirkeeda mi soo dir kartaa waxaan rabaa inaan arko jigeeda Saara Yonji waxay ku dhahaysaa qoftaas hal sawir xitaa ma ka hayay kadib markay baxdo damibaar baaki tiimkiisa waxay ku laabanayaan kaamirada waxay duubtay markii labadooda wada hadlaayeen si ay wax yar cadeen xataa uga helaan markay wareereen midkood wuxuu ku dhahayaa maanta waa daalnay waqti qadan waa la joogay marka waxa soconno kadib markay baxaan baar shaqadiisa ay isku sii wadanaya wuxuuna laptop gelinayaa flash wuxuuna fiirinayaa waxay duubeen kaamirada markuu Yonji ugu tagay qolka wuxuuna ku arkayaa wuxuu la yaabo Yonji ayadan intay meedka marada ka qaaday ayay wajiga candhuuf ugu tufaysaa baarkan yaabka adduunka ayaa ka soo haray kadib wuxuu baartaan yar ku sameynaya Yonji in dambiyo hore u gashay kadib wuxuu arkay Yonji in lagu haysto kiis lacag ku sayso inuu maxkamadda ka yaalo kadib wuxuu imaanaya qaybta waaxda dabagalka lacagaha la lunsado gabadha meesha taliyaha ka wax ku dhahaya waxaan u baahanahay inaan helo macluumaad fara badan kiiska adiga ay haysid iyo kiiskayga way soo dhaxgalayaan kiiska Yonji talisadna wuxuu sheegaysaa in qof isku dayay inuu jirdili afduub isku daray Saara Kim markaan wareysan wuxuu noo sheegay in asaga la soo ijaartay ayna soo dirtay Yonji ninkan wuxuu noo sheegay Saara lacagtii lagu maalgashay inay soo celis inay diiday lacagtaas lacag ma ahan waa 5 bilyan oo won kadib waxa arkanaya Yonji oo wada gaaray waxayna soo xasuusanaysaa iyadoo Saara la joogto waxayna ku dhahaysaa walaalo bishii ugu horeysay ma ahe wixii ka dambeeyay $1 xataa ima soo gaarin Saarna waxa ku dhahaysaa
waxlaan lay diidana inaan kula shaqeeyo adiga sabirka ayaa kugu yar waxaana tahay qof daalan mana loo baahno inaad saan u weelasho khasaarihi faa'iido waa la helaa markaa ganacsada tahay inaad saan u khirooto ma ahan adiga waxaa tahay CEO ugu sareeya shirkadda Nokia marka qiirada iga jooji iyo dhuusadan Yonjin waxa ku dhaysan aan maafsan waawacdi lahaa hadaan lacagtaas aan lahaan lahaa lacagtaas aan ma lahayn lacag dadoobe ahayd oo aniga kaliya kugu maal gashaday baxar ayaan naxda ka fadhiya hadaan lacagtaas aniga aan celinin haddii xisaab xir la sameeyo loo ogaado bas waay lacagtaas shirkadda aan madaxda ka ahaa saarna qayla ay ku bilaabaysaa waxna ku dhaysaa kaliya waxa ku dhahay la sameey wax kala isku sameeynin kadib ama ay qabanaysaa waxna u sheegaysaa haddii lagu ogaado lama huraan waay in dhamaadkadu soo dhawaado kadib hab ay siinaysaa waxna ku dhaysaa in arintaada isaad ugu walsan horta ma fahamsantahay adiga dadka hortooda yuusan afkaada hal ay raxtaa yuusan ugu soo bixin shible iska dheh kadib Yonjin intay yaabto maalintii xigta waxay qaad boorsadii hadda koor ay siisay waxayna u geysay nin si ay u gadato markuu ninka baartaan ku sameeyay boorsada wuxuu galayaa gudaha wuxuuna soo qabanayaa boorsadii mid uu kadib wuxuu weydiinayaa labadan boorso midkee fake ah markay sheegi wayso wuxuu ku dhahayaa waa lagu gaado 100% boorsada mid fake ah kadib ninka waxay weydiinaysaa tan asalka meeqa la gadaa asagana wuxuu ku dhahayaa waxa la gadaa 5 milyan oo won waa weyn kale loogu talagalay faqiriinta ma Yonjin markay ogaatay in la gaabay afka ay taagaysaa kadib gaarigeeda waxay keenaysaa meel badda u dhow kadib boorsadii waxay ka buuxinaysaa dhagaxaan ayuu dhig kar ku kacay ayuu ku tuuraysaa boorsada badda dimi baark asana barkii la afduwanay Saara fiideo kaamirada duubtay ayaa la tusay ayadoo tugtamaysa Saara asagana waxa weydiinaya qoftan Soomaan Saara kii madax ugu sareeyo shirkadda Buudiyo talasana waxa ku dhaysaa qoftan ma ahan Saara kii waxay ahayd shaqaale iska yar baarkinto ayuu ku dhahayaa shaqaale iska yar ah talasada waxa sheegaysaa qoftan afduubta magaceedu ahaa Ayooyin waxayna jirtay 30 sano waxayna la tahay in wax la isku dhex qasay intay Saara afduuban lahaayeen waxay afduubteen Ayooyin kadib aqoonsigeeda ayaa la tusaya waxayna sheegaysaa qoftan inta la keenay inay lugta ka jabneed wajigeeda calaamad dhaawac ay lahaayeen dimi baar asna xasuus ayuu galay isla maalintaas asoo jaranjaro soo fuulay waxa arkay iyadoo ooyinayso kadib maro oo si ayuu waayay kadib teegiisa ayuu furaya kadibna uu siinaya ayadana waxa ku dhaysaa oo ma itqaana adiga asagana waxa ku dhahayaa u qaadina wax wanaagsan oo ku sameeyo oo kale kadib markay istaagto oo soo is dhahdo lugta ka jabneed ay bilaabaysaa inay ku socoto baarka markuu arko wuxuu ku dhahayaa lugtii laga hayaa ku socota un jeedid miya ayadana gacanta kale ay ku bedelinaysaa birta asagoo yaaban ayuu banaan ku soo baxaya waxana ka soo dawrdayso talisada waxayna ku dhaysaa ninkii afduubta waxana dhahay tiimka la garab ayaan ku siinaya shirkadda Buudiyo runteeda banaanka loo keeni lahaa marka baartaan ku sameysay haddii run tahay wuxuu sheegayo marka boorsooyinka dhan ee meesha lagu sameeyay fake waay kadib markuu xafiis ku soo laabto Barak Jay wuxuu ku dhahayaa marka u dirnay warqad waaxda arrimaha dibadda waxay noo sheegeen wax Saara Kim la dhahayo inaysan jirin magaceeda da'deeda waxbarashada dhan fake waay maalintii xigtay Jay wuxuu imaanayaa xabsiga si uu u wareyso ninkii hadda ka hor afduubtay Saara ninkii afduuba ahaa Jay wuxuu ku dhahayaa walaalo warkiis fiican u dhuuq ma jecelna war ku soo celiyo Jay wuxuu ku dhahayaa weligaa ma maqal shirkad Buudiyo asagana wuxuu ku dhahayaa waa aqaana waxaana madax ka Saara tuugta qarnigan waxa meesha iska soo galeen asigii Saara ayuu u daadinaya wuxuu ku dhahayaa maalintaas waxa ay yimaadeen Yonjin ordayso waxayna ku dhahaysaa adiga Soomaaliya ninka lacag darteeda dadka u dilo asagana wuxuu ku dhahayaa dantaada leh ka hadal dadka dil iska dhaaf meeqa lacag laga haysta adiga Yonjin wuxuu ku dhahaysaa lacagta la haysta ma yaro waa 5 bilyan asagana wuxuu ku dhahayaa aniga dad dheel kuma dili laakiin waxa gaarsiiya heer ilaa ay dhimashada iga bariyaan kadib Saara ay wadada u galayaan waxayna arkayaan ayadoo qof homeless ah ay dharkeeda u siibaysaa si qabow ugu gashto waxay arkeen Saara ay soo qabanayaan Saarna wuxuu ku dhahaysaa walaalayaal maxay iga rabtiin qof maskiina iska ahay ee iska fasaxa tuugi wuxuu ku dhahay iska daaya 10 bilyan maxaa ku sameysay maxaa nima ku aroostay ma ku gashay Saara wuxuu ku dhahaysaa lacagtaas waa maalgeliyay ganacsi ah ku galay waxa ku dhiibay insurance iyo dukaanka lacagta shaqaalaha ijaarka meesha lagu ganacsanayo xafladaha ku qabtay saasay ku baxda lacagtaas tuugi wuxuu ku dhahayaa qoftii Yonjin oo shuraakada ahaydeen inaa wax isku sameeyay ku heshiiseen Saara wuxuu ku dhahaysaa wixii saxna ayaan sameeyay ilaa kulli xaal next week dalaad fiican ayaa helaya marka lacagta ayuu dhameystir aniga siinaayo Saara ayuu warka sii wado ayaa ciijil u qabanaya kii tuug aan wuxuu ku dhahayaa oo had ina dhiibtid ma rabtid miya Saara wuxuu ku dhahaysaa wax u dhigma lacagtaas ayaan siinaya ee mar la iga fuuq balaya kugu dhacday markuu fuuq wuxuu dhahayaa maxaa waxa u dhigma ay siinaysid ama ay jeclaata la kashkiye Saara wuxuu ku dhahaysaa boorsooyinka dukaanka yaalo ayaan ku siinaya oo qaaliga ah asana midkii baaci la socday ku dhahayaa baac internetka baar aan aragnay waxay sheegayso markuu baar wuxuu sheegayaa in halkii xab la gado boorsooyinka meesha yaalaan 100 milyan oo won kadib wuxuu keenayaa dukaanka iyadoo gacmaha ka xiran kadib dhulka ayuu ku tuurayaa Saara waxay ku dhahaysaa si ay u qaadid boorsooyinkan waxa u baahan tihiin furay lagu furi lahaa kadib meesha furaha yaala ayay geenaysaa ayagana way qaadanayaan kadib waxay ku dhahaysaa kuwa cusub stoorka ku jiraan markuu baxo wuxuu arkayaa sawir meesha ku dhagan Saara waxay ku dhahaysaa adiga doqon ayaa tahay ma taqaan wax qiimaha leh waxa lahayn marka waxa ku qasbaa inaa xad kadib tuugi intuu xanaaqo hal mar ayuu dharbaxshil seexinaya dhulka ayadan alarmiga ay daaraysaa kadib albaabka ay ku xirmaayo kadib ayuu madax ka soo qabanaya wuxuu bilaabay inuu madax ka garaaco markay dhulku dhacday waxay ku dhahaysaa 5 daqiiqo kadib meesha askarta ay imaanayso kaamirooyinka meesha ku xiran wax walba way duubeen tuugiina kaamirooyinka ayuu fiirinaya Saarna waxay bilaabaysaa jireen waxaan iska dhigaysaa inay baryayso si uusan u dilin ayada kadib tuugi wajigiina qarsad ayuu bilaabaya Jane wuxuu ku dhahayaa sidaas ay lagu soo qabto laalo kadib wuxuu sheegayaa Jay in qofkii soo dacweysay aysan in magaceeda Saara uu ahaa Ayooyin kadib askarteeda ayaan u diray si uu soo ogaado qofkaas magacaas leh waxaan soo ogaaday qofkaas inay ahayd shaqaale u shaqeynaysay Saara shaqadan waa laga buriyay qoftaas Saara lahayo magac been ayuu ku qaraabataa waxay ku soo dacweysay magaca Ayooyin jirtaas waxa isticmaal khiyaanoolayaasha waaweyn oo kaliya kadib Jay wuxuu baartaan ku sameynaya Ayooyin kadib tiimkeeda ayuu cad soo dirsanaya asoo magac kale isticmaalayo cabaar ma kula hadlo ayadana waxay ku dhahaysaa stoorka u dhig lagu gad ayaan joognaa inoogu imo Jayna meesha ayuu imaanaya dad badan oo saf ku jiraan kadib magaciisa ay leeyarinaya asana gacanta ayuu taagaya Ayooyin wax bilaabaysa in asxaabteeda si shaqo loo qabanayo ay u sheegaysaa Jayna wax bilaabay inuu si hoos u duubto ayadoo ogeen kadib ay arkaysaa Ayooyin markay u timaad waxay ku dhahaysaa aniga kaftan ciyaar ma jeceli adiga dooko miyaa tahay kii il soo hadlayay qowyo ku dilinay soo bax kadib waxay keenaysaa teendada meesha ugu dhisneed Ayooyin waxay ku dhahaysaa markii ugu horeysay inta aad timaad miya oo aad ka qaraabatid
dharka hudheeda. Jaay waxa ku dhahayaa meelaan la ka qaraabtaa lacagtoo yar soo aruursada kadib meeshan ay hudheeda la gaadaa bis. Ayadana waxa ku dhahaysaa midkii u qaalsana markada ahayd kujima ahayd mise kuwo kale ahaayeen. Jaay waxa ku dhahayaa waxay ahayd markada ugu qaalsan Buudiyoor maadaama ayada ay magaalada ay haysato. Ayadana waxa ku dhahaysaa shirkadaas waxay soo saarto oo dhan waa fake barakana ma lahan madax dhuubo ayaa lagu qaldin. Jaay waxa ku dhahayaa indhahoonyo laakiin adiisi ku ogaad waxa soo dhan adiga aqli ayaa tahay ayuu malaynayaa. Hayuuna waxa ku dhahaysaa sababtoo aan shirkadaas Buudiyoor aan ka shaqeyn jiray mar hore. Hayuuna waxa sheegaysaa sida isku barteen ayadii Saara. Maalinta Saara waxay ma dukaanka ka shaqeynaysaa Hayooyin. Ayadana shaqadeeda ay iska haysatay ayadoo tusayso boorsooyinka. Saarna waxay arkaysaa Hayooyin surwaalkeeda meel ku duuleelsan yahay. Markay aragto Saara meeshan ay ka tagaysaa. Hayooyin inta isku yaraatay ayaa meel cidla iska fadhiisanaysaa. Kadib waxay meeshii boqsaneed waxay iska baranaysaa koolabir. Kadib markay soo la saaxiib gacanta ka soo qabato waxay ku dhahaysaa qoftii hadaa boorsooyinka tusayso waxay ahayd Saara. Hayooyin ayadana waxay ku dhahaysaa saaxiibteeda armay aniga dacwo igu dubsalay qoftaas. Saaxiibteeda waxay sheegaysaa wixii boorsaada adiga tustay kulligood way gadatay. Aniguna waxay igu codsatay inaan surwaalkan aan ku siiyo. Kadib Hayooyin waxay timid suuliga waxayna bacda ka furtay surwaalkii cusba ay Saara siisay. Waxaana ka soo dhacay kaarka Saara ee shaqada. Markay aragtay Sayd ayuu faraxday. Kaarka gadaashiisana waxa ku qornaa daarabti inaa shaqadan iska bedeshid. Kaliile isoo wac. Hayooyin way ogolaa Saarna waxay geysay dukaankeeda cusub ee furi doonto. Saarna waxa ku dhahaysaa aniga waxaan u baahanahay qof shaqadan xirfad fiican u leh oo macaamiishan soo jiidan karo. Adigna waxa tahay qofkaas. Waadna qurux badan tahay waxaana leedahay soo jiidasho dabiici ah. Markam ogolaanaysaa inay ila shaqaysid. Hayooyin maya ma dhihine haa ila soo booday. Wayna ogolaatay. Hayooyin shaqadeeda ay iska bilaabatay maalintii xigtay. Kadib meesha waxaa timid duqdii la dhahay Joy. Kadib Hayooyin ordays waxa u imaanaysaa Saara waxayna ku dhahaysaa Joy ayaa noo timid qofta taajir isnaca waay. Marka maanta ayadaa noo timid leelna meel iskaaga ma tagto qoftaas. Kadib Saara hoos ayay soo degaysaa waxayna soo dhaweynaysaa Joy. Waxaana la soo bandhigaa wax boorso dukaanka yaalay. Duqda ayada cabitaan cabi rabto hal mar laba ayaa qabanayso. Duqda ayada meesha mantaga rabto Saara boorso meesha taalay ayaa afku gelinaysaa. Kadib shaqaalaha ayaa kala diraysaa. Duqda meesha ay hawsheeda ku dhamaysanaysaa ayadana. Kadib Hayooyin ayadoo jikada joogto waxay qaanad ku arkaysaa daawo meesha taalay. Waxayna ogaanaysaa in duqda aysan iska mantagin laakiin cabitaan daawo loogu daray. Kadib Joy waxay ku dhahaysaa boorsadan ka helay anaga lacagteeda dhiibay aniga ma jeceli in wax lagu yeeshto. Kadib waxay ku dhahaysaa adiga qof fiican ayaa tahay nambarkaadii sii. Saarna waxay ku dhahaysaa aniga waxaana qofka meeshan leh. Duqda waxay ku dhahaysaa oo adiga waa miya Saara. Kadib waxay dukaanka boorso yaalay waxaa la gadatay Joy waxaana loogu geeyay gurigeeda. Qofta Saara laan caadi ahayn waxay aad boqorada ganacsiga. Kadib ayadoo war ku wada Jaay waxaa teendada soo galay saaxiibteeda. Kadib Hayooyin shaqo yar ayaa galay waxayna weydiinaysaa horta ad sidee ku ogaatay yaana kuu sheegay intaan iga soo gashay. Kadib waxay arkaysaa gacantiisa oo wax ku qorinayo. Kadib markay marada qaad gacantiisa waxay arkaysaa inuu telefoonka cod ugu duubay wayna ka dafaysaa. Halkaas ayay nooga egtahay qaybta koowaad. Ha ilaawina muuqaalkan like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad subscribe soo dhig channelka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin qaybta xigta.